بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو داودي وردقدقا diyaaradaha dagaalka Itoobiya iyo sidoo kale taangiyada Itoobiya ayaa goor waxa ay la wareegeen hoygii uu deganaa madaxweynaha hore ee Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Laftagareen iyada oo maleeshiyaadka halkaasi qabsaday laga cabsi qabay inay la wareegaan bililaqana ay ka sameeyaan guriga Cabdi Casiis Laftagareen Itoobiyaanku waxay si cad u sheegeen inay dhafoorka ka toogan doonaan cid walba oo ka soo agdhawaata gurigaasi oo ay dad badan aaminsan yihiin inuu yahay hantida ugu weyn oo shacabka reer Koonfur Galbeed maanta ay leeyihiin oo ay rabaan koox gaar ah inay bililaqaysato waxaan ku soo gudbin doonaa sidoo kale kulamo gaar ah oo ka socda Baydhabo banaanka magaalada Baydhabo gaar ahaan tuulada Awdiinle la yiraahdo 5 urur oo kamid ah ciidankii Laftagareen ayaa ku sugan amar ka yimaada Cabdi Casiis Laftagareen ayay sugayaan oo ay dagaalka ku qaadaan haddaba maxaa ka socda gudaha iyo banaanka magaalada Baydhabo maxay yihiin kulamadii ugu dambeeyay halkaas ka dhacay diyaaradaha dagaalka Itoobiya ee lagu arkay hawada Baydhabo maxay yihiin taangiyada Itoobiya maxaa xilligan keenay inay tagaan guriga Cabdi Casiis Laftagareen su'aalahaas ayaan rabaa dhammaantood inaan kaaga jawaabo haddii tahay markii kugu horeysay channelkan ku soo bir subscribe dheh wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno ayaad la socon doontaa soo dhaw daawada sharaf iyo karaamo ciidamada Itoobiya ayaa la soo warinayaa inay taangiyo gaadiid dagaal iyo diyaarado dhowrkii saac la soo dhaafay ay soo galiyeen magaalada Baydhabo oo fadhi ku meel gaar ah Koonfur Galbeed wararka iyo macluumaadka la helaya waxay tilmaamayaan in diyaaradahan ay yihiin kuwa mar walba lagu arki jiray garoonka diyaaradaha Shaati Guduud mararka qaarna lagu arki jiray hawada magaalada Baydhabo oo ay tahay wax caadi ah laakiin wararka qaar waxay leeyihiin diyaaradahan iyo taangiyo dagaal oo Itoobiyaanku ay leeyihiin sababta ay u soo galeen magaalada Baydhabo waxay tahay inay sugaan amniga gurigii hore ee madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Laftagareen oo shacabkiisa u tanaasulay magaalada Baydhabo si nabadgelyo uga baxay dhowr sargaal oo ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya oo gudaha Baydhabo ku sugan oo aan magacyadooda qariyay ayaa goor dhow ila wadaagay muuqaalo iyo sawirro muujinaya taangiyada Itoobiya oo afarta hareere ka taagan guriga Cabdi Casiis Laftagareen gurigaas dadban waxay aaminsan in hanti qaali ah ay taalo oo kooxdii horarka ahayd ee qabsatay magaalada Baydhabo ay ku qamaami karaan hantida halka taalana ay guran karaan Cabdi Casiis Laftagareen hadduu u baahan yahay hantidaasi maanta kama uu tageen laakiin wuxuu uga tagay shacabka Koonfur Galbeed marka u turi maayaan raggan magaalada qabsaday oo waxay rabaan inay sida horarkii oo kale ku qamaamaan oo ay magaalada Baydhabo ka sameeyaan wixii ay rabaan okay wararka hadda aan helayna waxay tilmaamayaan sidoo kale in ciidamada Itoobiya warqad ay gaarsiiyeen wasaaradda amniga dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo taliska ciidanka xoogga dalka warqadaas waxay ahayd in maleeshiyaadka magaalada qabsaday ay rabaan magaalada inay qalalaase iyo arbushaad iyo dhibaato ka sameeyaan laakiin aan loo dulqaadaneyn lagana yeeli doonin waxaa si cad loo gaarsiiyay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo lagu yiri haddii aad qalalaase iyo dhibaato rabtaan banaanka magaalada ku sameeya laakiin magaalada amnigeeda waxaa ka masuula ciidamada Itoobiya sargaalka ugu sareeyay militariga Soomaaliya oo nin Xasan Sheekh Maxamuud ay qaraabo yihiin ayaa la sheegay inuu arrinkaasi ka carooday laakiin markii dambe waxaa loo sheegay waxaan Itoobiyaanku ay ku hadlayaan inaysan ahayn waxay joogkooda kala soo baxeen laakiin ay yihiin wax shuruuc ah oo midowga Afrika u yaala banaanka magaalada Baydhabo tuulada la yiraahdo Awdiinle waxaa laga soo warinayaa in ciidamada Koonfur Galbeed ee xaq ahaa kuwa Baydhabo ku sugan xaq maahan waa maleeshiyaad macawiso gashan iyo kuwo duurka ka yimid oo sida koox shabaab u dagaalamayo horara oo bililqa geysanaya laakiin ciidamadii saxda ahaa ee Koonfur Galbeed waxay ku sugan yihiin banaanka magaalada Baydhabo tuulada Awdiinle waa 5 urur marka waxay noqon karaan 2700 ilaa 3000 iska gaarsiiyay oo asgari 3000 oo asgari intay Baydhabo weeraraan maanta way qabsan kareen ama magaalada Baydhabo markii la soo weeraray xaqiiqda dad miir qaban la hadlay anigu dad mucaarada lama hadlayo dadka xaqiiqada haday rabtaan ciidankaas Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo way difaaci kareen laakiin Laftagareen waxaan ku sheegayaa inuusan hanti doon ahayn laakiin uu ahaa in shacabkiisu bari ka maal hadii codka gacanta loo galiyo in isaga soo dooranayaan ciidamadaasi hadii maanta Laftagareen uu soo diro hal telefoon magaalada Baydhabo way weerari karaan Xasan Sheekh Maxamuud cali Sowna nolosha lagu soo qaban karaa waa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ceeb ka weyn ma jirto in taasi dhacdo laakiin hadii aysan wax ku sii socdaan kulli wuxuunba isbedeli doona wax walbana banaanka ayay imaan doonaan beesha ciisana waxay la soo warinayaan ciidamadoodu inay hareereeyeen guri uu deganaa nin oday ah oo ka tirsan ciidanka Somaliland wararka la helaya waxay tilmaamayaan in ciidanka beesha ciise magaalada Boorama
ay geli doonaan dhowrka saac ee soo aadan sida uu tilmaamay sargaal sare oo ka tirsan ciidanka beesha ciisana waxaa laga cabsi qabaa dagaalla halkaasi ka dhacay sida ay tilmaamayaan eelawareedyo lagu kalsoon yahayna xaaladdu aad bay u kacsan tahay oo dagaal ayaa laga cabsi qabaa gudahaan saaxiibayaal wararkeena intaas bay ku dhan yihiin hadday tahay markii kugu warisay janalka ku soo biir ammaano allah